munaasabad si heersare ah loo soo agaasibay isla markaasina lagu xusayay xuska maalinta caalamiga ah ee haweenweynaha adduunka oo loo asteeyay 8 Maarch ayaa lagu qabtay habeennimadii xalay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay munaasabadani sida heerka sare ah loo soo agaasimay ururada haweenka arrimaha bulshada haweenka xisbiyada iyo haweenka hal abuurka leh iyo wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwoohinda Xirsi Jaamac Gaani hawlku dhaga sanadkani 2020 ayaa waxa uu ahaa sinaanshaha umadu waxa uu dhiiri gelinayaa caalam loo siman yahay ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha naga iyo xubno ka tirsan boardka sare ee ururka qaran ee NOW waxaanay si qoto dheer uga hadleen xuska maalinta haweenweynaha adduunka oo loo asteeyay 8 Maarch waxaanay u mahadnaqeen wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo kala shaqeysay qabanqaabinta xuska haweenka adduunka marso saaka yogigan oo dhan waa loo dabaaldegayay dabaaldegaas oo isugu jiray hawlo badan iyo waxqabad badan aad baan u hambalyeynaya dhammaan haweenweynaha reer Soomaaliland haweenweynaha adduunka haweenka muslimka ah dhammaantoodba waan hambalyeynaya aad iyo aad baan idinku soo dhaweynayaa waa mahadsantihiin wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo ururka NOW waan hawshan wiiga marka wada shaqeynayay dhammaantiin waan soo dhaweynayaa aad baan mahadsan bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn waxaan ka salaamayaa wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta qoyska iyo arrimaha bulshada waxaan ku soo xisinayaa salaantayda ururka ama isku xidhka nagaad oo halkan aan weliba si gaar uga salaamayo Nafisa iyo Farax waxaan ku soo xisinayaa salaantayda mar saddexaad salaamaya ururka heer qaran ee NOW madaxdiisa halkan joogta haweenka ka socda xisbiga kulmiye ee ii muuqda haweenweynaha quruxda badan ee masabka iyo doonaan ku fadhiya xafladan waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka baada saxaafadda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warqadda waxaa loogu qoray 5 daqiiqo inaan hadalno caawa waxay ahayd markay waqti badan loo siiyo kuwa ay aragnimada badan hayeen inay wax badan uga sheegaan marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo wasaaradda qoyska iyo nagaad oo isku dhafan xafladda quruxda badan leh ee lagu maamuusayo xuska 8 Maarch 8 Maarch halka marka la yiraahdo dumarku waxa weeyaan kaalin weyn bay bulshada kaga jirnaa haddii ay tahay doorka siyaasadda iyo haddii tahay doorka qoyska meel ay haween ka maqan yihiin oo baraare iyo wanaag iyo nabadgelyo ma jirto aad iyo aad markale waxaan si sharaf iyo qadarin leh halkan uga hambalyeynaya wasiirka wasaaradda qoyska iyo shaqo-gelinta oo dardar badan ka muujisay waayadii dambe in dumarka xaqooda kor loo soo qaado hawlaha dumarkana ay noqdaan kuwo meel walba laga hadlayo waxaan meesha ka maqlay inuu aan mar labaad mahadcelinayaa shaqooyinka nagaad oo 20 sano u dambeeyayba ka shaqeynaya hawlaha haweenka anaguna xukuumad ahaan haddaan nahay haddii ku jira xukuumadda diyaar waxaan u nahay hawl kasta oo manfac qaranka u leh oo haweenkana u leh inaanu ka taagnaano oo aanu ka soo qayb galno oo aanu waxqabadkeeda muujino aad iyo aad baan dhammaantiin ku mahadcelinayaa jaaniska aanu helaa maanta inaan ka hadlo dhiirigelin badanna way ii tahay intaasoo saacado aad igu soo dhaweyseen waxayna u baahannahay hablo dhalinyara iyo haween waxgarad ah oo meel kasta ay looga qayb galaa u faradhuuban hawlaha haweenka salaamaya dhammaantiin martida sharafta leh ay u horeyso wasaaradda qoyska wasiiradeennii Hinda iyo wasiir ku-xigeenkii abigood joogta Yurub abigood joogta iyo ururka NOW iyo dhammaan bahda reer Nagaad iyo daayarka fadhida ee ma sha Allah tabarakallah ay quruxda badan laba aad baan idin wada salaamayaa mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa munaasabadan waxa weeyaan munaasabad aad runtii u qiimo badan oo ah inaynu waxa weeyaan aynu isugu nimid oo halkan isugu soo midownay inaynu ku wada dabaaldegno innaga waa 20 guuradii waa 8 waa maalinta haweenweynaha adduunka laakiin innagu waa 20 guuradii 20 sano ee ku jirnay dalkeena alxamdulillah
waxaana sidoo kale munaasabadani ka hadlay agaasimaha waaxda qorshaynta wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Filsan Xuseen Khaliif waxaanay si faahfaahsan uga hadashay xuquuqaha ay leeyihiin dumarku ee ay siisay diinteena islaamku waxaanay carabka ku adkaysay in uu haweenku horseed ka yihiin guul kasta oo dunida guudkeeda laga gaadho agaasimaha waaxda qorshaynta wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland waxa ay u mahadnaqday hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee suura geliyay in munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ay u qabsoonto xuska maalinta haweenweynaha adduunka maanta waxay isugu nimidnay waa 8 Maarch oo ku beegan maalinta looga dabaaldego adduunweynaha ama caalamka inaguna waynu dabaaldegaynaa waxaan leeyahay hambaliyo haweenweynaha caalamka meel kasta ay joogaan oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan hay'adaha ama baartilariska nagala qayb qaatay xafladda quruxda badan ee inay sida u dhacdo aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa intii waxaa soo gabagabeeyey munaasabadani lagu xiiseeyey xuska maalinta haweenweynaha adduunka wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Marwo Hinda Xirsi Jaamac Gaani ugu horreynna waxa uu wasiirku u mahadnaqay ka soo qaybgalayaasha munaasabadda xuska maalinta haweenweynaha adduunka waxaanu wasiirku ka warramay kartida iyo geesinimada ay leeyihiin haweenku ugu dambeyntiina waxa uu shahaadooyin halkaasi ku guddoonsiiyey haweenkii ugu dadaalka badnaa ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay u aragto hablo meel gaadhay waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Marwo Hinda Xirsi Jaamac Gaani mar labaad soo qaybgalkiina oo intii muhiim noo ah iyo ajindistiina inaad nagala soo qayb gashaan madasha bilan ee boqoran ee ay la wadaagayo haweenka dhigeena ah habeenka 8 Maarch ee ay madasha ku suganahay intaa dabadeed runtii haweenku waa waxaan qofna loo sheegay marka laga bilaabo asaaska adduunka ee subxaanahu wa ta'ala markii uu sameeyey aadan ama nabiyullaahi aadan alle ayaa xikmadiisa ku ogaaday inay lagama maarmaan tahay in la abuuro gabadh ku wehelisa adduunka sidii ay noloshu dhaqan iyo qiimo iyo macno u samayso sanadeedana basbashiyo barwaaqo u gaadha iyo horumar waara runaantii gabdhaha halkan lagu guddoonsiiyey shahaadooyinka xulka ay u garatay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku sanada 2020 waxa weeyaan hablihii aan u aragnay inay yihiin hablo runtii meel gaadhay waxaa ka mid ah nuura oo dhabarkiina fadhida waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Hargeysa.